intii lagu guda jiray dagaalkii labaad ee adduunka. Vladimir Putin aabihii wuxuu ahaa askari ka tirsanaa ciidamadii Ruushka. muddo dheer kadib markii uu ku qaatay furinta iyo dagaalka dhexdiisana, wuxuu soo qaatay Vladimir Putin aabihii fasax uu ku soo booqanayay reerkiisii iyo dadkiisii, kuna tegay magaaladiisii uu ku noolaa lagu magacaabayay Petersburg. intaa kadib waxay odhanaysaa qisadu wuxuu helay Putin aabihii isagoo ku socda gurigiisii baabuur weyn oo ciidan oo gudihiisa ay ka buuxaan meydad, iyadoo dowladihii ka soo horjeeday Ruushka ee la dagaalamayay dagaalkii labaad ee adduunka ee ay ka mid ahaayeen Jarmalka iyo Ruushku ay duqeeyeen magaaladiisii. arrinkaas oo sababay inay burburaan guryihii, dadkii rayidka ahaana lagu laayo oo ay ku geeriyoodaan halkaas. waxaana lagu soo guray oo laga soo buuxiyey meydadkii baabuur waaweyn si loogu aaso meel isku mid ah. wuxuu soo dul istaagay Vladimir Putin aabihii meydadkii lagu siday baabuurta, isagoo aad u murugaysan